waa kee wadanka haddii aad guursatid dowladda wadankaas ay ku siinayso 82,000 oo dollar. haa 82,000 oo dollar ayaa farta laga saarayaa haddii aad wiil tahay oo aad gabar keensatid, ama haddii aad gabar tahay oo aad wiil keensatid oo aad rabtaan in ay isguursataan 82,000 oo dollar ayaa farta la idinka saaraya si aad qoyska u dhistaan oo aad isku guursataan oo isku aroostaan. maalinnimadii arbacada ahayd golaha wasiirada wadanka Qatar ayaa waxay siyaadiyeen miisaaniyadii loogu talagalay guurwadareedka dhalinyarada wadankaas. dhalinyarada wadankaas ee isguursanaya waliba inta badan dhalinyarada u shaqeeya xarumaha dawladda ayaa dawladdu waxay siinaysaa labadii isguursanaysa 82,000 oo dollar. dawladda Qatar ayaa waxay rabtaa in ay siyaadiso taranta dadkeeda. sidaan la socono wadanka Qatar waxaa ku nool 2.6 milyan oo qof. 88% kamid ah dadka wadanka Qatar ku nool waa dad ajaanib ah. hindida oo kale waxay ka yihiin 700 oo kun. yacni 2.6 ka wadanka Qatar ku nool kaliya 12% ayaa waxay yihiin dad wadanka Qatar si caadi ah ugu dhashay. dadka kale waa dad wadanka ka shaqeysta. su'aal yar oo kooban, haddii aad rabtid inaad guursatid adigoo Soomaaliya, dawladda Soomaaliya lacag meeqa dhan ayay kugu caawinaysaa? lacag meeqa dhan ba yacni kugu caawinaysaa oo ay kugu saacidaysaa? fadlan saaxiibayaal, waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirtiin kaga codsanayaa inaad subscribe sartaan kanaalka YouTube-kayga waxaad ka helaysaan profile-kayga TikTok-ga. waa mahadsantihiin, guuleysta.